ciyaaraha kubadda cagta ee dugsiyada sare ka socday magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland ayaa maanta dhawaan soo gabagaboobay iyadoo xafladii lagu soo afjarayay ciyaartaasina lagu qabtay xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC ee magaalada Garowe. ciyaarahan oo ahayd ciyaaraha ay soo qaban qaabiyeen hay'adda Save Children iyo waliba wasaaradda isboortiga ee dowladda Puntland ayaa loogu talagalay in lagu wacyigeliyo dhalinyarada lagana wacyigeliyo in ay ka noqdaan burcadbadeednimada iyo waliba falalka xunxun oo aan u fiicnayn dhallaanka. ciyaartani oo in muddo ka socotay magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland ayaa aakhirkii isugu yimaadeen finalkii ciyaarta ahayd dugsiga sare ee Imaam Nawawi iyo dugsiga Gambole Secondary School ee magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland. waxaana ciyaartaasi ay ku guuleystay dugsiga sare ee Gambole kaasoo isagu maanta lagu gudoonsiiyay xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC koobkii ay ku hanteen ciyaartaasi. xiritaanka xafladda ciyaartaasi lagu xiriyay waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala gadisan oo ka socday maamulka Puntland oo kamid yahay wasiir ku-xigeenka isboortiga ee dowladda Puntland Axmed Cigaal Cawaale iyo wasiirka maamul wanaaga Maxamed Ciise Faarax Gaashaan iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socota hay'adda Save Children. dhammaan mas'uuliyiinta kala gadisnaa ee goobtaasi ka hadlayay si weyn uga hambaliyay ciyaartani iyo qaabkii u socotay isla markaana dhalaanka kaga wacyigeliyay in ciyaartaasi ahayd mid loogu talagalay inay wacyigelin tahay taasoo kalena ay dugsiyadu wadaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiga ee dowladda Puntland Axmed Cigaal Cawaale ayaa goobtaasi ka hadlay isla markaasina halkaasi lagu gudoonsiiyay koobkii ay ku guuleysteen dugsiga sare ee Gambole Secondary School kaasoo la gudoonsiiyay kabtanka ciyaartooyda u ciyaareysay dugsiga sare. Axmed Cigaal Cawaale ayaa hambalyo u soo jeediyay dhalaankii ku guuleystay isla markaana kuwa kale u sheegay inay sanadaha dambe isku diyaariyaan inay iyaguna sidaas oo kale ku guuleystaan. waxaan ku mahadcelinayaa sidii ciyaaraha aad uga soo qayb qaadateen way imaan doontaa qaybihii dambe oo hadda markii Gambole oo kale ay number 1 noqdeen gobolada kalena sidoo kale loo soo ciyaaraya hadhow gurmooyinka oo dhan baa la isku keenaya ciyaaruhu kala go'imahayaan way soconayaan diyaar garowgaas ciyaaraha fudud ee adduunka inaynu ka qayb galno waxaan aaminsanahay oo macallinkii qaaday 2009 the best coach athletics in the world wuxuu noqday nin Soomaaliya jaamac Karaaciin la yiraahdo. waxaa isku diray Qatar iyo Ingiriiska Suudaan iyo Sacuudiga markuu xaaskiisii caruurtiisa la tashadayna waxaa qaadatay dalka Qatar uu joogaa. wuxuu yidhi haddii aad effort samaysaan dhinac si loo kalluumaystaan jiro degmo walba inta la tago tartan la dhigo waxa weeye waa Soomaal baraar kuma jiro waxa weeye wiilka Ilaahay uu siiyay hibadu waa ka soo baxaya. ciyaarahan oo muddo ka socday magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland ayaa ahayd mid ay Save Children iyo wasaaradda isboortiga ay ugu talagaleen inay dhammaanba ka wada qabtaan deegaamada Puntland iyadoo dhawaana laga qaban doono meelaha kala gadisan ee Puntland ka mid tahay. Maxamed Saciid Yuusuf, Home Cable TV, Garowe.